maanta waxaynu booqan doonaa dalka haysta kaydka shidaal ee ugu weyn dunida. waa dal leh dhul ballaaran oo cajiiba. dalkan waxaa ku yaala biyo dhaca ugu weyn dunida. dalkan ashqaraarka ayaynu ka durduuran doonaa xogihiisa diiran ee la yaab kale. waxaynu dacal ilaa dacal diiradda saari doonaa khayraadka, siyaasadda iyo dhulka Venezuela. ku soo dhawaada daawadayaal, dad iska diiday faragelinta iyo gobodfalka reer galbeedka. Venezuela waxay ku taallaa waqooyiga qaaradda Koonfur Ameerika, dhanka xeebta badda Caribbean-ka. waxay xuduud la leedahay Colombia oo dhan galbeed ka xigta, Brazil oo dhan koonfureed kaga beegan, iyo Guyana oo dhanka bari ka saaran. dhanka waqooyi waxaa ka xiga xeeb dheer oo qurux badan oo ay la wadaagto badda Caribbean-ka. cabirka dhulka Venezuela waa in ka badan 916,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. waa dal ballaaran oo leh buuro dhaadheer, kaymo roobaadyo iyo dhul beereedyo cajiib ah. ka hor intii aan Isbaanishku iman Venezuela waxaa ku noolaa bulshooyin asal ah sida Arhuaca iyo Carib oo ku noolaa xeebaha iyo kaymaha dhulkaas. qarnigii 15aad Isbaanishka ayaa yimi, waxaana dhiseen xerooyin ganacsiyo magaalooyinka xeebaha. bulshadii asalka ahaydna waxaa laga qaaday dhulkoodii iyo xorriyaddii. dhaqdhaqaaqa xornimada ayaa bilowday bartamihii qarnigii 19aad. 1811kii waa sanadkii Venezuela markii ugu horreysay ay ku dhawaaqday inay madax bannaan tahay. hase yeeshee dagaallo sokeeye iyo halgan kala duwan ayaa socday, kumana guulaysan Venezuela inay xorriyadda qaato sababtoo ah Isbaanishka ayaa dib u qabsaday sanadkii 1812. guud ahaan xornimada Koonfur Ameerika waxaa hogaaminayay Simón Bolívar oo ka soo jeeday Venezuela. Venezuela waxay qayb ka ahayd riyo weyn oo la rabay in lagu dhiso dal la yidhaahdo Gran Colombia oo lagu midaynayo dalalka Venezuela, Colombia, Ecuador iyo qaybo ka mid ah dalka Panama. balse nasiib darro riyadaas ma rumoobin oo Venezuela waxay xorriyaddeeda heshay sanadkii 1830. intii ka dambeysay xornimada, Venezuela waxay la kulantay xukunno kala duwan oo military iyo siyaasiyiin awood leh. goobaha shidaalka laga helo ee Maracaibo iyo meelo kale ayaa Venezuela ka dhigay dal hodan ku ah saliidda. lacagta shidaalka ayaa waddanka si weyn u beddeshay, horumar iyo maalgashi ayaa yimi, balse sidoo kale waxaa bilaabmay musuq iyo ku tiirsanaanta hal kheyraad. 1958kii waxaa sanad muhiim ah marka loo eego Venezuela. kadib markii uu dhammaaday xukunkii militariga ee Marcos Perez, dalku wuxuu galay marxalad dimuqraadi ah oo la yidhaahdo Punto Fijo, waxaana la sameeyey xukun wadaaga oo xisbiyo waaweyn ay sameeyeen si siyaasadda dalku ay u xasisho. shidaalku weli waa laf dhabarta dhaqaalaha Venezuela. mararka qaar dhaqaaluhu si dhaqso ah ayuu u kordhaa, balse musuq, maamul xumo iyo hoos u dhaca qiimaha saliidda ayaa sababay in adeegyada bulshada ay daciifaan. 1958kii Hugo Chavez ayaa loo doortay madaxweyne, isagoo shacabka u ballan qaaday isbeddel bulsho iyo dhaqaale. waxaa la bilaabay barnaamijyo bulsho, laakiin sidoo kale waxaa kor u kacay awoodda dowladda, waxaana bilaabmay cabashooyin ku saabsan xorriyadda saxaafadda. kadib geeridii Chavez, Nicolas Maduro ayaa noqday madaxweyne sanadkii 2013. xilliyadii dambe dalku wuxuu galay dhibaatooyin dhaqaale oo ba'an, waxaana dhacay sicir barar aad u sarreeya. xiisadda u dhaxaysa Venezuela iyo Mareykanka waxay salka ku haysaa 3 arrimood waaweyn. Venezuela waxay leedahay kaydka shidaal ee ugu weyn adduunka, taasoo keentay in Mareykanku uu isku dayo inuu saameyn ku yeesho siyaasadda gudaha Venezuela, balse taasi marnaba ma suuragelin. Mareykanku wuxuu ku eedeeyay xukuumadda Maduro musuq iyo xadgudub xuquuqda aadanaha ah, taasoo keentay cunaqabatayn dhaqaale oo uu ku soo rogo. Venezuela waxay isku aragtaa dal madax bannaan oo u taagan anti-imperialist, taasoo macnaheedu yahay in aanay ogolaan doonin faragelin ama saameyn shisheeye. dhinaca kale, Mareykanku wuxuu arkaa nidaamkaas mid halis ku ah dimuqraadiyadda iyo xasilloonida gobolka, taasoo dhalisay isku dhaca ideolojiyadeed oo u dhexeeya labada dhinac. sababahan ayaa ah kuwa soo dedejiyey isku dhaca Venezuela iyo Mareykanka oo aaminsan inuu yahay dalka dunida ugu awoodda badan. caasimadda Venezuela waa Caracas oo ah magaalo meel buuraley ah ku taala, oo ah xarunta dhaqaalaha, ganacsiga iyo siyaasadda Venezuela. magaalooyin kale ee muhiimka waxaa ka mid ah Maracaibo oo ah xarun weyn oo saliidda laga qodo. sidoo kale magaalooyinka caanka ah waxaa ka mid ah Valencia oo ah magaalo xarun u ah warshadaha iyo wax soo saarka Venezuela. sidoo kale waxaa jirta magaalo lagu magacaabo Merida oo ah magaalo dalxiiska iyo waxbarashada ku caan ah. magaaladan waa mid cajiib ah oo soo jeedata dalxiisayaasha ardayda. tirada dadka Venezuela
maanta waxaa lagu qiyaasay 29 milyan oo qof balse malaayiin kale ayaa dalka ka qaxay sabab dhaqaale iyo siyaasad awgood heerka akhriska iyo waxbarashada waa mid aad u sarreeya gudaha Venezuela ku dhawaad 97% dadku waa kuwa wax akhriyi kara waxna qori kara tani waxay muujinaysaa in dadka dalkani xagga waxbarashada ka dhisan yihiin sidoo kale Venezuela waa dal wax soo saarka shidaalka ku tiirsanaa ka hor dhibaatadii dhaqaale 2010 ilaa 2014 GDP-ga dalku wuxuu ahaa mid sare laakiin hadda waxa ku yimi hoos u dhac aad weyn dadka intooda badan waxay ku nool yihiin dakhli sanadle oo ka yar $3,000 waxaana dalka ka jira sixir barar baahsan si kastoo ay ahaataba shidaalka ayaa weli ah laf dhabarta dhaqaale ee dalka Venezuela inkasta oo reer galbeedkii Mareykanku dadaal iyo hantiba ku bixiyeen cunaqabataynta Venezuela haddana weli Venezuela waa meel cajiib ah oo dalxiisayaashu soo jiidata Angel Falls waa biyo dhaca ugu dheer ee adduunka oo gaaraya 979 mitir waana goob dalxiis oo dhif iyo naadir ah sidoo kale goobtan waxay soo jiidataa indhaha dalxiisayaasha dunida Panama National Park waa dhul cajiib oo leh buuro cajiib ah oo dushoodu simanta iyo kaymo cufan oo aad u qurux badan goobtan waxay ka mid tahay goobaha hay'adda UNESCO ku dartay dhaxalka adduunka goobaha kale cajiibka waxaa ka mid ah Margarita Island waa jasiiradda ugu weyn ee Venezuela waxaana ku taala dhanka waqooyi bari ee dalka meel 40 kiiloomitir u jirta xeebta caadiga ah waxaana lagu naanaysaa The Pearl of the Caribbean ama lulka Caribbeanka sababtoo ah xeebaheeda quruxda badan biyaha buluuga iyo cimilada kulul ee joogtada ah waxa kale oo jirta jasiirad kale oo ashqaraar ah taasoo la yiraahdo Lusa Raquez Archipelago waa jasiirad iyo dhagxaan badeed oo yar yar oo ku yaalla waqooyiga Venezuela qiyaastii 160 kiiloomitir ay u jirtaa caasimadda Caracas waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Caribbeanka biyo cadaan ah ciid cadaan ah iyo kheyraadkeeda badeed oo aan la mid ahayn kuwa dunida ayay leedahay jasiiradani goobtani waa paradise dabiici ah waana meel si adag loo ilaaliyo maadaama ay tahay beer qaran Venezuela waa janno duni oo ka qarsoon adduunka aynu ku noolahay waana goob lagu curyaamiyay cunaqabatayn joogto ah Venezuela waxay leedahay nidaam waxbarasho lacag la'aan ah gaar ahaan heerka aasaasiga ah laakiin dhibaatooyin dhaqaale ayaa sababay in jaamacado badan ay hoos u dhacaan arday badan ay dibadda u qaxaan si ay u helaan mustaqbal fiican buurta ugu dheer dalka waa Pico Bolivara oo dhererkeedu gaarayo 4970 mitir waxay ku taalaa buuraha Andes oo ah meel ay adag tahay inay qorraxdu gaadho sababtoo ah waa meel aad u sareysa oo barafku si joogto ah uga da'o webiga ugu dheer Venezuela waa Orinoco River oo mara koonfurta dalka dhererkiisu wuxuu gaarayaa in ka badan 2000 oo kiiloomitir waxaanu muhiim u yahay dhaqaalaha iyo deegaanka waxaana ku yaala goobo kalluumaysi oo badan sidoo kale wuxuu muhiim u yahay beeraha iyo tamarta korontada laga dhaliyo Venezuela waa dal leh taariikh dheer kheyraad badan iyo dad adkaysi badan laakiin maanta waxay noqotay tusaale muujinaya sida kheyraad badan iyo shidaalku ay u noqon karaan dhibaato haddii aanay jirin maamul wanaag iyo cadaalad maalin waxa la rajaynayaa in Venezuela ay dib u hesho quruxdii sharafkii iyo barwaaqadii caan ku